السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول الله يمك على نيرة بلان. waxaan halkaan rabaa inaan caawa halkaan live ku soo galay ama barnaamijkan la socodsiinaya in arrimo dhawaanta aan basbaaday hadday noqoto social media iyo bulshada dhexdeeda hadallo la isla dhexmarayay hadalladaas oo ahaa Somaliland iyo Puntland fadaxada ka dhaxaysa oo markan gaadhay ilaa heer shacab marka hore laba maamul baa haystay inkastoo ay xagga Somaliland ay jeegaanta u badnayd musabbiix iyo xulfadiisa argagixisada ku saleysan hadda waxay galeen dadka shacabka ah waxaan maqlayseen ninka ku hadla afka madaxweynaha ninka ku magacaabanaya musabbiix afkiisa ninka ku hadla Faysal Cali Waraabe oo video foolxun oo bulshada Soomaaliyeed intii wax garanaysay ay ka dhigayeen aan ka xumaadeen soo dhigay baraha bulshada soo ku cambaareynayay in Puntland iyo magaca beelweynta Majarteen iyo iskuna dilayay uma Soomaaliyeed musabbiix ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe codka uu ku hadlo وعدتي مسبحي waxaad ka garanaysan musabbiixi ma hadlo waxa uu hadlay Faysal Cali Waraabe oo aad u taqaanaan nin neeris ah waalan neerfisa musabbiixina Faysal Cali Waraabe wuxuu ku hadlayay walaalkii bulshada Soomaaliyeed isku dirayay oo lahaa jaamacadda Axmuud ee ku taala magaalada Buurama jaamacaddaas oo ah jaamacad fac weyn oo bulshada Soomaaliyeed kuwa ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa ka soo jeeda NFD kilanka waddanka Kenya ay halkaas iyo Puntland iyo Somaliland bay halka ku baran jireen si siban oo ay wax ku baranayeen musabbiixi iyo ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe jeegaanna waxay ku tashadeen inay bulshada iska hor keenaan bulshada reer Puntland iyo kuwa reer Somaliland haddii reer Somaliland raacayaan oo musabbiixi iyo Faysal Cali Waraabe jeegaan warkeeda raacayaan iyaga u taala haddii ay is xoreynayaan oo waxa la yiraahdo ay wixii lagu yaqaanay reer Buurama ay sameynayaan dee waa arrin wanaagsan inkastoo dawladda Puntland ay soo saartay bayaan ay ku dalbanayso in lagu soo celiyo muwaadiniinteeda ka jooga meeshan lagu magacaabo waqooyi galbeed ee Soomaaliya Somaliland ay dadka qaar u yaqaanaan waxaan ku cambaareynayaa jeegaanta dagaalkan foolxumada leh ay ku hayaan dhulka reer Puntland ha noqoto gobolka Sool Sanaag iyo Cayn iyo deegaanka Tukaraqba Puntland dadka qaarkiis waxay dhahaan Puntland waxay u socotaa Tukaraq si Tukaraq ay ugu soo qabsato Puntland Tukaraq kuma socoto Puntland waxay ku socotaa deegaanadii ay xaq u lahayd reer Puntland sida Sool Sanaag Cayn iyo Cergaabo waxaan ay tagayaan reer Somaliland meesha xaq u lahayd inay awooyaashu degi jireen oo ah labadii gaatama iyo wixii ka sheeyay hadii reer Puntland lagu khasbo inay tagaan magaalada Burco gudaheeda aanu galnaa Burco insha Allah ciidamada Puntland ee geesiyiinta ah aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxay gali doonaan Hargeysa la soo qabsan doona hadii aysan Somaliland ka wada bixin kuwa jiri meesay intaysan ehelka kala dhiman baan uga digayaa inay ka baxaan Somaliland ay meel awood ku qabsan karto ciidamada Puntland ciidamada libaaxa bariga Afrika kama hor ismaan karaan ciidamo xun oo maleeshiyaad oo la soo aruuriyo jeegaan ah oo riyo lagu sasabay ninka Soomaaliland macaadana nin walba uu og yahay rag waxa laga wada helayaa balaha bulshada laga wada helayaa raggii wax yaqaanay ha noqday kuwa ka soo jeeda waqooyi galbeed iyo kuwa ka soo jeeda deegaanada waqooyi bari Puntland waxay barnaamijyadii laga diyaariyay oo baraha bulshada yaala nin walba wax garanaya wuu arkay waxa Soomaalidu ay tahay waxa la isku yahay Somaliland waxay tahay waa la yaqaan Puntland waxay tahay waa la yaqaan waa nimankii Ingiriiska uu ku yiri dhulka iga gada oo Ingiriis la yiraahday dhulka ka gadanaa Ingiriisna markuu arkayna nimankan muwaadiniin ahayn ay ka tageen Professor waxa ku weydiinaya hal su'aal ah ma isleedahay Somaliland waxa lagu xalal leedahay al-shabaab Somaliland iyo al-shabaab waa isku mid sababtoo ah Somaliland danteedu hadii Somaliland wax ku dhawaaqan jamhuuriyadda Somaliland la yiraahdo hadii Soomaaliya dawlad la dhaho ay dhalato oo Soomaaliyeed awood lahayd la yaqaan ay dhalato wax Somaliland ah jirin biyaan dhulka Soomaaliya dhulka lagu eekar ma horta batata waa wadan yar wadan isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah dadka lagu eekar maahan Somaliland ehelka umbe kala dhimanayaan oo dadka umbe kala dhimanayaan wax Somaliland loo imaanay misle Somaliland waxay ku dadaalaysaa sidii koonfurta aysan u xasil lahayn iyo barigu hadii ay xasilaan deegaanada hadda colaadda ah Somaliland wax la dhaho jiraya ma jiraan marka waxa ay la fadhiyo isagana mursal oo kamid ah odayaasha wax garadka ah ee Puntland
iyo reer gaalkacyood haddii ay dadku sida laisku yaqaana laisku warramayaa mursal waa kusoo dhaweynaysaa barnaamijka. professor musral waxaan kaa wareysanaynaa wax yar oo ka kooban somaliland waxay wadaa caqabado ay ardadii iyo dadka waxgaradka ahaa ay leeyihiin waa ku dilaynaa maxaa ka dhihi lahaa caqabadahaas? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa Puntland iyo Somaliland ayaanta xasaradaha ka socday xagga miyiga iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada oo ka socda jidda hore ee Tukaraq. waxaan aragnay daandaansi inay Somaliland ay Puntland ku waday muddo dheer markii ugu dambeysana guuldarro ay ka raacday iyadoo daandaansigaasna markii la yiri musabix uu yiri waxaan tagayaa Garowe waa uu ku ceeboobay inkaar baana ka raacday waana aanu tagaynaa anagu meesha xuduudayadu ay tahay labada gaatamo weeye nin kastana waa uu yaqaanaa ingiriisna anaga waxba nooma yacni yeeriyo anaga wax yeersana niman ingiriis ka horreeyay baanu nahay oo tacweyn Soomaaliyana anagu waxa weeye dadka wax laga weydiiyaa nahay waxaan ka hadlayaa oo kale inaan ka hadlo ma jeclayna Faysal Cali Waraabe waxyaabaha uu meeniyada soo dhigayo sida jaamacadda Camud dhalinyaradii dhiganaysay aad buu mahadsan yahay odayaashii ka hadlayay caawa oo lahaa anagu nama matalo Faysal Cali Waraabe deegaan kale u dhashay waa dad xalaal oo wanaagsan weeye dadka waa dad Soomaaliya oo dhan baa dhigata ama kilarka Itoobiya ha ahaato ama ha ahaato Djibouti ama ha ahaato Soomaalida kale Soomaaliya oo dhan baa meesha ku dhan waxbarasho u joogaan mana uu ka hadli karo ninka la Faysal Cali Waraabe anigu haddeer Faysal Cali Waraabe nin hadalkiisa daba gali karaba maba ihi oo yacni waxa weeye haddee nin hadalkiisa qiimay kara anigu maba ihiyo nin odayo haddee arrinkaas iskala weyn baanahay shabaabkii waxyaabaha la sheegayeen wuxuu cadeeyay Faysal Cali Waraabe wiilkiisii markii uu ku dhintay Daacish in asagu wiilkiis uu intaa la socday dabeedna uu ku dhintay Daacish oo asagu uu noo cadeeyay inuu dagaal ka galay Suuriyo dabeedna halkaas ciidankii huwantaha uu ku dhintay isaga noo cadeeyay asagii xaaskiisii waana aan xaqiiqada waa haynaa marka waxaan waxba cidna aan ka weydiinayn in uu taageeraan Somaliland al-shabaab waa cadahay cadayooyin badan baan lahayaa waxaan oranahay waxa weeye dhibaatada aad ku haysaan dadka Soomaaliyeed ka daayay baan leenahay haddayna ka daynayn waxa weeye waa la soo afjarayaa Soomaali hadda waa id aragtay waana iska kiin qabanaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. master hal su'aal baan ku weydiinayaa master waxaan ka wareysanayaa maxaa ka dhihi lahayd ardada iyo dadka waxgaradka oo la leeyahay waxaan igu qabsanayaa xog badan ku haystaa waan leenayaa ardadaas maxaa ku dhiirigelin lahayd? ardada waxaan leeyahay waxbarashadiina wata qof meel ka hadlay waxa weeye ha u baqinina waxbarashadiina wata hana yacni baqinina waddanka joogtaan waddan Soomaaliyeed weeye waxa weeye arrinka argagaxayus idinku sameyn baan idin leeyahay sidaas aan ardayda aan u soo jeedinahay insha Allah waxaan u rajaynaynaa dadweynaha Puntland inay guul gaaraan.